kulanti wanaagsan daawadayaalaha ku soo dhawaada wararka Sporting Universal TV oo xilligan idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Nairobi. Magacaygu waa Ibrahim Gedo Awaale. Qodobada wararka Sportiga xilligan ku daawan doontaana waxaa kamid ah kooxda Manchester United oo doonaysa xidigaha waaweyn ee Sergio Ramos iyo Bastian Schweinsteiger. Inter Milan oo la sheegay in heshiis la gaartay xidiga muhiimka ah qadka dhexe ee Kondogbia kooxda Monaco. iyo Copa America quarter final soo gaaray Brazil oo xaqiijisay booskeeda quarter final ka ama 8 koox ee ugu dambeeya iyo sidoo kale koobka kubadda cagta ee dhalinyarada cuslaatay ee Ramadaanka oo ka bilowday xaafadda Islii magaalada Nairobi. qodobadaas aynu ku soo qaadan doonaa wararkii Sporting Universal TV ee xilligan. marka horese aynu ku bilowno kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa la xiriirinayaa xidigaha muhiimka ah ee Real Madrid iyo Bayern Munich oo kala ciyaaray ee Sergio Ramos iyo Bastian Schweinsteiger. Macalinka kooxda Manchester United Louis van Gaal ayaa doonaya in boosas muhiim ah uu ka xoojiyo kooxda United oo xilciyaareedkii dhamaaday ku dhameysatay kaalinta afraad ee horyaalka dalka Ingiriiska. waxaana wararka maanta soo baxay ay sheegayeen in United ay hadda xoog saari doonto helista Sergio Ramos oo qandaraaskiisa Real Madrid ku eg 2017 iyo Schweinsteiger oo qadka dhexe uga ciyaara Bayern Munich oo qandaraaskiisa ku eg dhamaadka xilciyaareedka bilaabanaya ee 2016. waxaana Sergio Ramos aad loo hadalaya Real Madrid uu ka tagayo halka Schweinsteiger isku dhacsan yihiin macallin Pep Guardiola. waxaana Schweinsteiger hadda sidoo kale isna la hadalaya inuu dib u midoobi doono macalinkiisii hore Louis van Gaal. United ayaa ilaa hadda soo iibsatay xidiga Memphis Depay oo ah 20 jir muhiim ah xulka Netherlands ka tirsanaa iyo kooxda PSV Eindhoven. tartanka kubadda cagta ee dhalinyarada cuslaatay ayaa ka bilowday xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. tartanka ayaa sanadkan waxaa ka qayb galaya 12 kooxood waxaana soo qaban qaabisay jaaliyadda sportiga Soomaalida ee dalka Kenya oo gudoomiye yahay Khaliif Ali Ahmed Khaliif Bajo. tartanka ayaa ka bilowday garoonka kubadda cagta ee Burhan Stade waxaana u soo daawasho taga dadweynaha ku nool xaafadda Islii waana koobka ugu xiisaha badan ee Ramadaan kasta la qabto. 12 kooxood ayaa ka qayb galaya sanadkan waxaana kamid ah koox ku ciyaaraysa magaca wariyaasha. kulankii furitaanka waxaa lagu bilaabay kooxda koobka difaacanaysa Islii Stars oo lagu goolay waxba kaga badisay kooxda Mii Stars. kulankii labaadna kooxda wariyaasha oo finalka tageen sanadkii hore ayaa barbardhac 1-1 la galay koox ku ciyaaraysa magaca Orient FC. waxaana sanadkan tartanku yahay mid ka xiiso badan kii sanadkii hore iyadoo mar kale kooxaha Islii Stars iyo wariyaasha iyo kooxo kale loo saadaalinayay in ay kama dambaysta soo gaari doonaan. tartanka ayaa waxaa ka qayb galay daawashadiisa dadweynaha ku nool xaafadda Islii iyo sidoo kale bahda saxaafadda Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi. Khaliif Bajo gudoomiyaha jaaliyadda sportiga Soomaalida dalka Kenya ayaa sheegay in tartanka ay ugu talagaleen in lagu madadaaliyo dhalinyarada iyo ciyaartoyda cuslaatay bishan barakeysan ee Ramadaan isla markaana hadiyado iyo koobab lagu doonsiin doono kooxaha ku dhameysta kaalimaha ugu wanaagsan. xulka kubadda cagta ee Brazil ayaa gaaray wareegga quarter final-ka ee Copa America ka soconaya dalka Chile. Brazil ayaa 2-1 kaga badisay Venezuela waxaana goolasha uga mahadcelinaysa Thiago Silva iyo Ovamino waxaana ka maqnaa kabtankooda Neymar oo ganax 4 kulna garka loo geliyay. waxay Brazil la ciyaar doontaa xulka kubadda cagta ee Paraguay 27-ka bishan. waxaa sidoo kale xulalka quarter final-ka uu soo gudbay kulanka ugu adag uu noqon doona Argentina iyo Colombia oo iyaguna 27-ka bishan ciyaari doona xilliga bariga Afrika. Brazil iyo Paraguay waxaa iyagu si gaar ah u xifaaltamaan oo sanadkan iyaguna si weyn kulankoodu adkaan doono. Bolivia ayaa Peru la ciyaari doonto halka martigeliyaasha Chile kulan adag ay kaga hortagi doonaan difaacadayaasha koobkan ee Uruguay oo ka ganaxan yahay xidigooda muhiimka Luis Suarez. xidiga qadka dhexe daadiyare Giovanni Kondogbia oo Faransiisku dhashay ayaa lagu wadaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Inter Milan. Inter Milan iyo Monaco ayaa ku heshiiyay lacagaha ciyaaryahankan oo lagu sheegay 35 milyan oo euro. waxaana lagu wadaa in Isniinta maanta galinka dambe uu tijaabada caafimaadka maro xidigan caalamiga ee reer Faransa.
Kondogbia ayaa koox badan la xiriirinayo Ingiriiska oo Manchester United iyo Arsenal ay kamid yihiin waxaana hadda uu go'aansaday inuu ku biiro kooxda Inter Milan oo macallin Roberto Mancini uu ku bilaabayo dayactir xoogan kadib markii kaalinta 8aad ay ku dhameysatay Serie A xilciyaareedka hadda dhamaaday. Kondogbia ayaa lagu xasuustaa gool qurux badan oo ka dhaliyay Arsenal wareegga 16 ee Champions League oo kooxda Monaco u gudubtay quarter finalka waxaana Monaco kaga soo biiray Sevilla 2013 isagoo 49 kulan kooxda reer France u saftay. wararkii sportiga xilligan waa naginta dibita uu kulmi doono waa barnaamijka ducawaalooyin kaga tagayeen amaana Allah.